dhalmala'aanta ama waxa loo yaqaano infertility-ga ragga iyo dumarka ay badan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Dr. Anisa Toobanle, ahna dhakhtarad ku takhasustay cudurrada haweenka, daaweyntooda iyo qaliimadooda. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo horta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka ay ku badan. Waxaa isweydiiyaa mar walba waxay tahay dhakhaatiirtu way ka hadlaan wax walbo waxaa la dhahaa dhalmala'aanta waxay si isla mid ah ay ugu dhacdaa ragga iyo dumarka. Haddana sababta maxay tahay mar walbo oo reerka dhasha ay kasoo daahdo gabadha loo tuhmo, gabadha farta loogu taago, iyada ay tahay qofka ka walwalo, iyada ay tahay qofka maxay ahayd dhakhtarka raadiyo oo mar walba dhakhtarka taagan. Maxay tahay sababta? Waxaa ogaatiin labada qofood ee lamaanaha ah mar waliba markii dhalmala'aan ama dhasha ay kasoo daahdo waxaa qasab ah dhakhtarka inay wada tagaan labadooda oo la daaweeyo. Sababta waxay tahay waxa dhacdo mararka qaar in gabadha dhakhtar ay tagto baaritaano la sameeyo oo ogtihiin baaritaanada qaarkiis sida hadday noqon lahayd raajadan tubooyinka lagu fiiriyo oo aad u xanuun badan gabadha la marsiiyo, qarash fara badan uu ku baxo, waqti fara badan ay geliso, mar waliba oo daawo ay qaadato gabadha waxay gelinaysaa rajo aad u fara badan, taasoo ay ugu dambeyn ay ka dhalanayso niyad jab. Mar walba ay daawo qaadato rajo u abuurmayso, haddana waxay kusoo dhammaanaysaa niyad jab fara badan oo xaaladeeda caafimaad sii xumeynaysa. Waxaa laga yaabaa marka ugu dambeyso in la dhaho ninka la baaro oo laga yaabo inay cilada asaga tahay marka gabadh ay daashay daawo ay ka daashay baaritaan ka daashay waqti badan niyad jab wax walba ay ka soo martay. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood. Tan koowaad horta waxay tahay nimanka marka ilmaha hadii soo dhalaan inta badan waxaa la dhahaa ninka maadaama uu ilmo soo dhalay khalaas waay, yacni waa dhali karaa waay, laakiin waa khalad. Fikradaas way khaldan tahay. Ninka asagoo dhalay cunug 1 sano jiro ama 2 sano jiro waxaa laga yaabaa cilad ku imaato in asaga sabab uu noqdo in ilmo dhali waayo. So macnaheedu ma aha ninka haduu ilmo soo dhalay inuuna cilada asaga aysan noqon karin. Arrinta labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay marka ma aragtay dadka bukaanada aad ula dhaqantid waxyaabo badan aad fahmaysaa. Bukaanada qaar ama dadka qaar waxay aaminsan yihiin fikrad ah ninka gogasha markuu yacni shaqada gogasha uu ku fiicnaado ama waajibkaas uu gudanayo macnaheedu inay tahay inuuna dhalmala'aan inay ku dhici karin. Way ku dhici kartaa isagoo 4 xaas qabo oo 4taba ay qanacsan yihiin yaa waxaa suurtagal ah in ay ku dhacdo ama cilad ay xaggiisa noqoto. Soo iskuma xirna gogasha iyo iskuma xirna dhalmala'aanta. So arrintaas waxay tahay aan uga dan leeyahay waxaa jirto marar badan oo arko gabdho ay uleysa tooreyso waa daale, dhakhtar waa ka daale, baaritaano waa ka daale, daawo waa ka daale, ninkaada ma la baara markaa dhexdeeda ilmaha ku dhehayso waa arrin aad u xanuun badan. Waxaa laga yaabaa in cilad dhan aana laga sheegin, waxaa laga yaabaa in daawooyin fara badan ay qaadatay haddana natiijo la'aan ay kusoo dhammaatay. So waxaa ku talinaa mar walbo labada qof ee lamaanaha ah si isla siman ay ku dhacdaa dhalmala'aanta waa inay dhakhtarka isla booqdaan baaritaano la wada sameeyo taasoona safarka dheer ka fududeynayso.